السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا رمان أصحاب تلقى نجد دعوانيسا ميل والبوشوكتان يسلبوا مقالكيجو ومركا يدين سو غاريبا مقالكا waxaan doonayaa inaan kaga hadlo war degdeg ah oo hadda soo dhacay xildhibaanada Ilhaan Cumar oo ka qodbeynaysa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxa weerar ku qaaday nin cunsuri ah isla markaana xildhibaanadu waxay sameysay iska caabin runtii cajiib ah marka qaybta hore ee maqaalkayaga waxaynu ku fiirin doonaa weerarkaasi Ilhaan la weerarsaday qaabka isaga caabisay iyo waxa sababay in xildhibaanada Soomaaliyeed ee Ilhaan markaas la weeraro aynu marka hore bal fiirin doonaa waxaan sidoo kale aynu qaybta labaad ee muuqaalkayaga aynu bal ku dul istaagi doonaa Trump oo mar kale afka furtay isla markaasna Soomaalida iyo xildhibaanad Ilhaan Cumar weerar ku qaaday iyo waliba Christian Noem secretary-ga Homeland Security-ga oo ayaduna la doonayo in dacwad weyn markaas laga gudbiyo bal qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee gobolkaasi Minnesota ayaynu muuqaalkan aynu ku fiirin doonaa marka bal soo dhawaada meel boojogtaan iyo solbo muuqaalkaygu uu marka idin soo gaariyaba wali dhankayga waxay ka tahay 27 January 2026 waana markii labaad oo maanta hawada ku kulmayno si aan bilaabo sidii aan muuqaalkayagii hore aynu ku sheegnay xalay qorshihii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ee ka dhanka ahaa Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga ah ee gobolkaasi Minnesota ayaa wuxuu xilligan u wajahayaa fashil xoog badan kadib markii ciidamada ICE ay dileen laba qof oo muwaadiniin ah oo reer Minnesota ah ciidamada ICE oo qaar badan oo kamid ah ay dhawaan ka bixi doonaan gobolkaas ayaa waxay xilligan la kulmayaan culays xoog leh marka ciidamada ICE waxay xilligan ay noqdeen tuka cambaar leh markay magaalada aadaan oo xataa ay dharka iska bixiyaan maxalliyada ciidanka oo dhar caadi ay xirtaan oo ay damcaan inay alaab soo gataan maqaayadaha wax ka soo cunaan soo danaystaan waa la garanayaa ayagoon xataa dharkii ciidanka aan qabinin halkaasna waxay kala kulmayaan aflagaado cay iyo waliba baaxsi xoog leh oo dhanka shacabka markaas kaga imaanaya tusaale bal muuqaalkan aynu bal fiirino sida ciidamada ICE oo markaas aan dhar qabinin looga dhax garanayo gudaha magaalada Minneapolis isla markaana loo baxsanayo. They are from Arkansas, and they are here to wreak terror and cause havoc to the people and the civilians living here. These are ICE agents, and they do not deserve one moment of fucking peace. Fuck you guys. Go the back fuck where you came from and get the fuck out of our city. You guys are not welcome here. You guys are pieces of shit that cause terror, and you're fucking terrorists. Markaysan marka waxay ciidamadan hadda ay ka noqdeen magaaladaas iyo gobolka ayo dhanba tuka cambaar leh mana jirto meel ay ku dhuuman karayaan wana sababta xilligan ay dawladda Mareykanku isbedel ugu sameysay qorshaheedii ay markaasi ka waday gobolkaasi Minnesota ee dhanka kale markii la fiiriyo ninka kale ee hoggaanka u ahaa ciidankan ee maanta laga saaray gobolkaasi Minnesota ee Greg Bofino ayaa shalay intii uu san bixin ka hor mar uu damcay inuu ka dukaamaysto dukaanka Target-ka la yiraahdo ayaa wuxuu la kulmay culays xoog leh iyo in si adag looga soo saaro dukaankaas oo markaas laaf laga deeyo fucking bum you're a bitch listen why did y'all probably fuck her too you guys are all bitches you can't do shit to me you can't do a thing to me get the fuck out of here get the fuck out nobody fucking wants you here right get the fuck out marka ciidamada ICE waxay xilligan u muuqdaan kuwa aan sii joogi karin gobolkaas shacabkuna waa kuwa runtii aad iyo aad markaasi oga caraysan dhacdooyinkii ciidamadaasi ay fuliyeen muddooyinkii hadda la soo dhaafay waana sababta uu madaxweynaha Mareykanku qorshihiisii uu markaasi dib uga laabtay ee dhanka kale markii aynu fiirino xisbiga Democratka ayaa saacadii hadda la soo dhaafay waxay si weyn markaasi ay u riixayaan in Christian Noem secretary-ga Homeland Security-ga oo markaasi hay'adda ICE ay hoos tagto in markaas ay xilka ka dagato ama impeachment ay ku sameyn doonaan impeachment-gu waa in qof xil haya maxkamad la fulo isla markaasna lagu la xisaabtamo dambiyo uu geystay Christian Noem intii ay hogaaminaysay mashruucan ICE ayaa laba qof oo muwaadiniin ah lagu dilay gudaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa kale oo jira dad badan oo reer Mareykan ah oo muwaadiniin ah oo tacadiyad kala duwan markaas ay ciidamadu u geysteen dhammaantoodna la diiwaan galiyay marka arrimaha iyo dhan ayaynu isku geynaynaa maxkamad ayaynu geynaynaa impeachment ayaynu ku sameynaynaa ay xisbigu ay leeyihiin waxa sidoo kale xataa la leeyahay waxa la socda dad ka tirsan xisbiga Republicanka ah oo ka soo horjeeda ee qaabka ay hay'adda ICE arintaasi ay u maareynayaan ayaa la leeyahay marka mashruuc noocaay ah ayaa saacadii hadda la soo dhaafay socday xildhibaanad Ilhaan Cumar oo caawa ka hadlaysay holka magaalada Minneapolis isla markaasna dadka u sheegaysay
arrinta la xiriirta in Kristi Noom ay xilka ka degato ama impeachment lagu sameyn doono ayaa waxa weerar ku soo qaaday mid ka mid ah kooxaha cunsuriga ah oo halkaas ku sugnaa. Abolishment of the agency. ICE cannot be reformed, it cannot be rehabilitated. We must abolish ICE for good. And DHS Secretary Kristi Noem must resign or face impeachment. haddii aad muuqaalkan fiirisaan waxaad arkaysaan in ninkan cunsuriga ah uu gabadha wax ku buufiyey ilaa haddana lama yaqaano waxa uu gabadha ku buufiyey waxa ay tahay labadiisa gacmood gacadna fartu ku fiiqaya gacan kalena waxbuu ku buufinayaa sida muuqaalka ka muuqata. Or face impeachment. ninka askariga ayaa ka soo gaaray ma ahane waxaan ba aaminsanahay haddii aan laga soo gaari lahayn inuu markaasi xataa uu isku day lahaa inuu gacan ola tago. waxaase cajiib ahayd sida Ilhaan Cumar ay arrintaasi uga falcelisay intii ay ka caarir lahayd intii ay istaagnaan lahayd Ilhaan ninkii ay markaasi ka hortagtay waxayna ku sigatayba inay feer markaasi ayba ku dhufato markii aad fiiriso gacanteeda laakiin markii dambe ay isgartay oo gacantii ma aysan tuurnin oo way hakisa. dadka meesha fadhiyay ayaa waxa laga maqlay qaar ka mid ah inay sheegayeen in gabadha markaasi wax lagu buufiyay iyo ayadoo leh waraaq yar oo tiish hal ay siiyo oo aan isaga tirtiro waxa la igu buufiyay. I don't know. Oh my God, he sprayed something on her. I need a napkin to know nothing. ninkan gabadha weerarka ku soo qaaday cunsuriga ah markii aad si dhaba u fiirisan timingka iyo xilliga uu weerarka u soo qaaday waa markii ay afka ka soo bixisay in Kristi Noom ay xilka ka degato ama impeachment markaasi lagu sameyn doono. And DHS Secretary Kristi Noem must resign or face impeachment. waxaynu marka halkaasi ka arkaynaa in ninkan cunsuriga ah uu diidan yahay in Kristi Noom oo ah secretary-ga Homeland Security-ga isla markaana ay hoos tagto hay'adda ICE la yiraahdo in xilka laga qaado waana mid ka mid ah waxyaalaha hadda sida weyn ay warbaahinta u hadal hayso. waxaa la leeyahay haddii Greg Bofino xilka laga qaaday gobolkan laga ceyriyay maxay noqon doontaa Kristi Noom oo iyadoo asaga ka sarreysay oo hay'addan ay markaasi ay hoos tagtay. waxaa marka xilligan muuqata in kooxdii cunsuriga ahayd ee doonaysay in xoog loo isticmaalo dadka shacabka ee reer Minnesota markii arrintii ay shaqeyn weyday inay xilligan ay ku fakirayaan inay xataa duulaan ku qaadaan xildhibaanad Ilhaan Cumar oo xasaanad haysata maxay noqon doonaan dadka shacabka ah ee Soomaalida ah iyo dadka kale ee liberalka ah ee ka hortagay duulaankii lagu soo qaaday dadka soo galootiga ah ee gobolkaasi ku dhaqan ilaa hadda lama garanayo laakiin waa qatar markaasi muuqanaysa. waxaana rabaa dadka Soomaalida inaan u sheego inay taxadarka ay badiyaan kooxahanu ay xilli walba sameyn karaan dhacdooyin amni darro ah oo noocayo kala iyo kuwa lamid ah marar badan ah hore ayay u sameeyeen. dhanka kale markii aynu fiirino madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump oo ku sugan gobolka Wisconsin xilli uu halkaasi ka waday ololaha doorashada midtermka ayuu halkaasi wuxuu ka soo caayay mar kale xildhibaanad Ilhaan Cumar iyo dalka Soomaaliya. Some great people come in. They have to show that they can love our country. They have to be proud. Not like Ilhan Omar. Did you see that wise guy? You know, she's always talking about the Constitution provides me with the following. You know, the Constitution, she comes from a country that's a disaster. It's considered, I think, it's not even a country, okay? It barely has a government. I don't think it does. They're good at one thing, pirates. marka waxaa ka muuqatay haddii qorshihiisa uu shaqeyn waayey inuu weli uu sii wado aflagaadada Ilhaan ka dhana iyo weliba dadka Soomaaliyeed. marka xaaladii Minnesota waxay xilligan u muuqataa in lagu kala adkaaday. Kristi Noom maxaa lagu sameyn doonaa xilka ma sii joogi doontaa mise way ka degi doontaa sidii ninkii ICE hogaaminayay lama yaqaano. Trump oo dib uga soo laabtay welina isku dayaya inuu face saving samaysto yiraahdo aniga dib uga soo laabtay waxaan doonaan sameyn karaa arrintiisu maxay ku dhamaan doontaa iyo arrimahaas waa waxyaalaha isha lagu hayo. laakiin caawa haddii Ilhaan duulaan lagu qaaday kooxahaasu wax walba waa ka suurtagal. dadka Soomaaliya ha taxadaraan isha ha ku hayaan ha iska fiiriyaan meelaha ay marayaan iyo weliba meelaha ay ka soo muuqanayaan bal wixii arrimahan ka soo baxo dambana
muuqaaladeena dambe ayaynu ku fiirin doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.